halkani waa BBC saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 7 aroornimo oo gow ah waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban FM-yada Facebook iyo boggeena internetka ee bbcsomali.com. Jimco wanaagsan subax wanaagsan dhageystayaal waa subaxnimo Jimco ah 4 bisha Agoosto ee sanadka 2023. idaacadda subaxnimo qodobadan idinkugu hayno waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo beeniyay dacwad loo haystay caalamka oo isbuucan laga xusayo toddobaadka naasnuujinta. haddaba maxaa ka mid ah faa'iidooyinka naasnuujintu leedahay? naasnuujinta waxaa loogu talagalay horta 2 sano la nuujiyo 6 bil ka mid ah 6 bil ugu horeyso waxaa la dhahaa exclusive breastfeeding oo ah in naaska kaliya la siiyo cunuga hadduu ku filan yahay marmarka qaarkood waxaa dhacdo hooyooyin qaarkood aysan ku filneen waan ku dhiirigelinaa inay nafaqo qaataan. arday badan oo ka tirsan iskuulada Mandera oo deeq waxbarasho ka helay maamulkaas iyo taliska cusub ee la wareegay xukunka Niger oo sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ugu falcelin doonaan gardarada kasta oo ugu timaada wadamada reer galbeedka. qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan ciyaarihiin ay ku jiraan ayaad ku maqli doontaan idaacadan subaxnimo oo Axmed Badar uu soo saaray. idaacadda subaxnimo anigoo ah Kawthar Maxamed Cabdullaahi ayaa idinla socodsiin doonta balse marka hore ku soo dhawaada wararka caalamka ee BBC-da iyo Cabdiraxmaan Cali Dhimbeel. mahadsanid Kawthar. Donald Trump ayaa iska fogayay eedeymihii loo soo jeediyay ahaa inuu maleegayay inuu meesha ka saaro natiijada doorashadii 2020. waxa uu ka soo muuqday isla maxkamaddii Washington halkaas oo ay boqolaal taageerayaashiisa hore loogu xukumay doorka ay ku lahaayeen weerarkii lagu qaaday Capitolka Mareykanka bishii January sanadkii 2021. maamulka cusub ee militariga Niger ayaa ka digay inay ka jawaabi doonaan gardarrada ka dhanka ah ee ku wadaan wadamada galbeedka Afrika. hogaamiyihii xilka laga tuuray ee Niger Mohamed Bazoum ayaa isna ku booriyay beesha caalamku inay gacan ka geystaan soo celinta kala dambeyntii dalkan. saynis yahano u dhashay dalka Spain ayaa helay nooc bakteeriya ah oo ka joojin karta kaneecadu inay dadka u sii gudbiso xanuunka duumada. bakteeriyadan ayaa la sheegay inay dhimi doonto xanuunsidaha kaneecada awoodeeda gudbitaaneed 100% in ka badan 70. ku dhawaad 18 qof ayaa ku dhintay isku dhac baseed oo ka dhacay dalka Mexico. inta badan dadkii saarnaa ayaa ahaa tahriibayaal qorshahoodu ahaa inay u gudbaan dhanka iyo dalka Mareykanka. Nicolas Petro oo ah wiil uu dhalay madaxweynaha Colombia Gustavo Petro ayaa qirtay inuu lacag badan ka qaatay kooxaha daroogada ka ganacsada intii lagu guda jiray dhageysiga kiiskiisa. waxa uu sheegay inuu qayb lacagta ka mid ah geliyay ololihii doorashada bixiis ee sanadkii hore. ugu dambeynna dowladda Alberta ee dalka Canada ayaa ka laabatay doonistii ay ku doonaysay martigelinta ciyaaraha barwaaqa sooranka ee sanadka 2030 sababo korodhka qiimaha maciishada ee dalkaas la xidhiidha. bishii hore gobolka Victoria ee dalka Australia ayaa isaguna ka baxay martigelinta ciyaarahaas ee 2026 sababo la xidhiidha cadaadis miisaaniyadeed oo uu wajahayo gobolkaasi. wararka caalamkana dhageystayaal waa naga intaa. Cabdiraxmaan Cali Dhimbeel oo mahadsan yahay halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa laanta af Soomaaliga ee BBC-da. dhageystayaal markana u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadeena subaxnimo. agaag subax wanaagsan mar kale dhageystayaal aan ku bilaabnay ee madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo la soo taagay maxkamad ku taala Washington ayaa iska fogeeyay eedaha loo haystay oo ah inuu doonayay inuu xafiiska sii joogo amaba sii hayo xilka inkastoo lagu guuleystay doorashadii dhacday sanadkii 2020. Trump ayaa kiiskan ku tilmaamay mid muujinaya musuqmaasuqa fadeexada iyo guuldarada uu Mareykanka ku hogaamiyay madaxweyne Joe Biden. waa sida uu hadalka u dhigay. faafahinta warkaasi waxaa inoo hayo stuudiyaha la fadhiya Axmed Badar. Axmed Kawthar waxay noqonaysaa markii saddexaad oo madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump uu ka soo hormuuqdo maxkamadda muddo 4 bilood isagoo markaasi eedeysana ah. eedeymo dhowr ah ayaa markaasi loo soo jeediyay oo ka mid tahay in markaasi uu isku dayay inuu dafiro ama diido doorashadii aanu soo dhaafnay natiijadii ka soo baxday. madaxweynihii hore ayaa diyaaradiisa gaarka ah ka raacay hoygiisa New Jersey isagoo markaasi
uga qayb galo markaasi dhegeysiga dacwad ogayaasha ayaa u sheegay ayaa ka sheegay dhegeysiga dacwadda in kiiskan iyo dacwaddanba ay noqon doonaan kuwo markaasi la dadejiyo. garsooraha maxkamadda ayaa Kowtaray wuxuu uga digay ama ay ka digtay in uu u hoggaansami waayo amarada maxkamadda, taasi oo ay sheegtay haddii ay dhacdo inay keeni karto in warqadda lagu soo xirayo loo soo jaro, dibna markaasi loogala noqdo xaqa sii deynta laguna soo ogi doono amar diidda maxkamadeed. laakiin kooxda sharciga Mr Trump ayaa sheegay Kowtaray in ay u baahanaan doonaan waqti dheeraad ah si ay isugu diyaariyaan dacwadda ayna u hubiyaan in hanaankani uu yahay mid cadaalad ah. Mr Trump ayaa iska diiday dhammaan dacwadihii lagu soo ogay. intii lagu guda jiray dacwadda ayaa Kowtaray waxa uu u hadlay madaxweyne Trump si degan, waxaana uu markii dambe u sheegay warfidyeenada in ay arrintani ahayd cadaadis siyaasadeed oo kaga imanaya dadka siyaasadda ay isaga soo horjeedaan. axmedow, marka la eego xisbiga Trump ma ka hadleen dacwaddan loo haysto? xubnaha xisbiga jamhuuriga ee dalkaasi Mareykanka tan iyo intii dacwadahan ay bilaabeen waa ay ka hadlayeen. madaxda xisbigaasi jamhuuriga qaar ka midana waxay u arkaan in dacwadani ay tahay mid siyaasadeed. afhayeenka xisbiga jamhuuriga ee aqalka Kevin McCarthy ayaa waxa uu sheegay in uu rumaysan yahay in eedeymahani ay yihiin kuwa siyaasadeed. waxa uu intaa ku daray in mar waliba oo taageerada Trump ay sare u kacdo lagu soo ogo dacwada cusub. waxay u muuqataa in mar kasta oo Trump uu sare u soo kaco dhanka codbixinta in loo jeediyo eedeymo cusub. waxayna ila muuqataa kadib markaad aragto inaan si dhab ah uga adkaanay Biden maalinta xigta waxaana lagu soo ogaa dacwad. mar kastoo uu jiro macluumaad cusub, dowladda federaalka waxay u muuqataa inay leedahay nidaam ujeedo gaar ah u abaabulan. codkaas ayaa u dambeeyey wararkii ugu dambeeyey ee dacwadda Trump oo uu si toos ah inala socodsiinayay Axmed Badar. markana arday tiradoodu kor u dhaafayso 1,000 arday oo ka tirsan dugsiyada iyo xarumaha waxbarasho ee ku yaala magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa wadeeq waxbarasho ka helay dowladda hoose ee maamulkaas, iyadoo mudnaanta koowaadna la siiyey ardayda leh baahiyaha gaarka ah. wakiilka dumarka Mandera Umul Khayr Qaasim ayaa Saciid Xasan Anteeno ugu warantay deeqdaasi ay bixiyeen. deeqda waxaa 7 milyan iyo 600 oo lacag Kenya ah. Mandera East, magaalada Mandera East constituency ayaan ku launch gareyn, laakiin waxa waaye program oo county-ga dhan ah. qaybaha waxbarasho ee ay ka kooban yihiin deeqdani maxay kala yihiin? horta waxa waaye waa basarigana waxa waaye education nooc walba u ahaado, laakiin aniga waxaan rabaa gooni ahaan meesha aan ku sugnay waxay ahayd jaamacadda lagu dhigo xirfad gacmeed. Mandera Technical Training Institute ayaa la dhahaa. Mandera Institute waxa waaye the only institution oo county-ga oo dhan looga wada imaado ay dadka ku bartaan xirfad gacmeed kala nooc ah. adduunkana waa ogtahay wuxuu u wareegayaa shaqada gacanta. wixii hore oo class kaliya iska fariisanaya way isku dhamaatay. hadda adduunka wuxuu u socdaa dhinaca shaqada gacanta. marka waxaan isdahay in dhalinyarta dumar iyo ragba oo waxba haysanin oo ducafada ka mid ah, dad waxaa ku jira aan wax maqlaynin, kuwaan wax arkaynin, in aan ku deeqno caawimaada. waxaad sheegtay in dadku ay isugu jiraan dad lixaadkooda dhan yahay iyo dad u baahan caawimaad dheeraad ah. sidee marka dadkaas wax ugu qaybinaysaan? kulka marka hore waxaan soo bidnay talo fara badan ilaa county director of education, head teacher, macallimiinta ilmaha ducafada ah iyo kuwa fuqarada oo waxba iska bixin karin ayaan ka soo xulnay kuwaas. process oo anaga aan xulno feerinana ay ahayd. wax hadda kaliya aan soo bidnay ma ahayn, muddo dheer aan kusoo jirnay. processka kale oo suubanayna waxaa waaye in oo scholarship aan siino kuwa macalinimada baranaya educationka. kulley waad ka warqabtaa umalaynaa North Eastern Waqooyi Bari inaan macalimiinta inagu yar yihiin. ay macalimiinta keli badan ay haysano ay yihiin macalimiinta imaada meelaha kale oo Waqooyi Bari ahayn. mar walbana ay agajugleyn ay nagu hayaan ay leeyihiin county-ga Mandera mise North Eastern generally faa'iido nooguma jirto. marka labadaas meel raba inaan xooga saaro caruurteena ay generationska kale ay wax ku bari doonaan insha Allah. annagaanba ka kaaftoono dad kaloo meel kale nooga imaanaan. waxaad sheegtay hadda dad inaad u fidiseen deeq waxbarasho oo deeqda waxbarashada ay gaarayso ilaa iyo 1,085 qof, laakiin baahida meesha ka jirto aad bay u ballaaran tahay. ma waxaa is leedahay hadda deeqdan aad fidiseen waxbay tari kartaa?
كله كم في النانيس بنادم وقت كله لما درجين كرو إلههم بنا ودرجين كرا لكن وحوين بقى يسكب التلفزيون إن شاء الله أجر سكولة شيء بازري كلهم waxaad arkaysaa kuwa scholarship laga bixinayo kuwa hadda aan ku sheegayo kalo ducafada ah ilmaha kalo agoomaha iyo aan xoogo percentage aan siinayno insha Allah waxaad sheegtay in aad xulitaan aad samayseen si aad u siisaan dadkan deeq waxbarasho xulitaanka sidee loo sameeyey cabasho horta bini'aadan horta kama dhamaanayso laakiin middan processka amarno waxay ahayd in aan ka ogaano county educationka schoolkiina aan tagno ka xulno ilmaha aan waxba iska bixin karin iyo kuwa aan ku sheego kale ducafada ah kuwa ducafada anigaaba hadda la kulmay iyagoo codsi gaar ah sii dirsanaya taasi waxay ahayd wakiilka dumarka Mandheera Umul Khayr Qaasim oo Saciid Xasan Anteen oo uga waramaysay deeqda waxbarasho ee ay arday siiyeen weli halka aad nagala socotaana waa BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba وهجاج مركنا سيدا ورك عالم كبات كم مقليسين دلالك كوبه بي ورجبلات كقلبات كأفريقيا إيكواس لوسو جابيو أي سيكوردية عدادس كيكو هيان سراكيش اللوري جاي تلادا دلك النيجر مريكن كايا دنكي سسود ويي تلابوين كاي لا يهد قادين مدحدا إيكواس isagoo sheegay inuu go'aanadooda taageersan yahay waxaa dhanka kale dalka Niger ka dhacay dibadbaxyo lagu taageerayo afgambiga wararka ay BBC-du ka qortay waxaa isku soo dubriday warbixintana nooga diyaariyay Axmed Badar xaaladda dalka Niger ayaa cakiran kadib afgambiga dalkaasi ka dhacay toddobaadkan soo dhaafnay kumanaan kun oo qof ayaa isugu soo baxay caasimadda dalkaasi ee Niamey si ay taageero ugu muujiyaan afgambiga military ee dalkaasi ka dhacay dibadbaxan waxaa ku baaqay ururada bulshada rayidka oo ka soo horjeeda joogitaanka ciidamada Faransiiska ee dalkaasi wariyaasha ayaa sidoo kale sheegaya in ay jiraan dad badan oo ku sugan dalkaasi oo ka soo horjeeda afgambiga goboleedka dhaqaalaha galbeedka Afrika ECOWAS ayaa dalkaasi ku soo rogay cunaqabateyn dhaqaale iyo mid ganacsi waxay sidoo kale ku hanjabeen in awood ay adeegsan doonaan haddii aan dib loogu soo celin xukunka madaxweyne Mohamed Bazoum dowladda dalka Senegal ayaa sheegtay inay diyaar u tahay in ciidamo ay u dirto dalkaasi Niger haddii ay ECOWAS gaaraan go'aankaasi Aïssata Tall Sall waa wasiirka arrimaha dibadda ee Senegal Pourquoi nos soldats doivent y aller? Ils doivent y aller pour deux raisons. La première, maxay askarteenu u aadayaan halkaasi laba sababood ay halkaasi u aadayaan midda koowaad ayaa waxay tahay waxaanu ka mid nahay urur goboleedka go'aankan gaaray ee ECOWAS la yiraahdo Senegalna waa dal saxiixay heshiisyada caalamiga ah xubin ka mid ah ECOWAS ayaa nahay go'aanada ay ku gaareen shirka madaxda dalalkana waan ka baaqsanaynaa ma aha wax dhici kara Senegal waa xubin firfircoon marka labaad Senegal waxay ku qanacsan tahay in afgambigaas la joojiyo waana sababta aan halka ugu socono c'est coup d'état. Voilà pourquoi on y va. dhanka kale dalalka reer galbeedka ayaa waxay cadadis ku hayaan saraakiisha inqilaabtay madaxweyne Mohamed Bazoum xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa sheegay in dalkiisa uu garab taagan yahay isla markaana taageersan yahay go'aanada ka soo baxa urur goboleedka ECOWAS waxa uu sidoo kale xusay in si dhow ay ula shaqayn doonaan urur goboleedkaasi ECOWAS iyo dhinacyada kale ay qusayso are working closely with ECOWAS, with concerned countries. waxaan si dhow ula shaqaynaynaa wadamada ECOWAS iyo kuwa kale ay khusayso ma doonayno inaan ka hor dhaco halka aan hadda joogno waan arki doonaa sida maalmaha soo socda xaaladuhu noqdaan laakiin sida aan sheegay waxaan aaminsanahay inay aad muhiim u tahay in waxa ECOWAS ku baaqayaan ay dhab ahaantii hirgalaan taas oo ah sii deynta madaxweyne Bazoum iyo soo celinta nidaamkii dastuuriga ahaa ee Niger waxaan taageersanahay dadaalka ECOWAS ay wado oo ay ku jiraan cadaadiska ay saarayso si natiijadaas loo gaaro dhanka kale Faransiiska ayaa dhaleeciyay shaqo joojin lagu sameeyay idaacadaha iyo TV-ga dawladda ay maamusho ee Niger kadib afgambigii toddobaadkii hore halkaasi ka dhacay tillaabadani ayuu Faransiiska ku tilmaamay mid cuburina dalka Niger ayaa xulafo muhiim ah lahaa Faransiiska waxaana halkaasi ku sugan ciidamo ka socda Faransiiska balse xiriirka ayaa xumaaday tan iyo intii uu dalkaasi ka dhacay afgambiga waxaana dalkaasi laga daadgurayay boqolaal qof oo u dhashay Faransiiska kadib markii dibadbaxayaasha ay weerareen safaaradda dalkaasi Niger waa wadankii afraad ee gobolka uu ka dhaco afgambi tan iyo 2020 waxaa arrintan walaac ka muujiyay dalalka ku bahoobay urur goboleedka ECOWAS iyo weliba dalalka kale ee daneeya arrimaha galbeedka Afrika
axmed beder waa u mahadsan yahay oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee dalka niger ee uu dhowaan afgembi ka dhacay. markana isbuuca koowaad ee bisha agast dunida waxaa laga xusaa toddobaadka naasnuujinta si sare loogu qaado wacyiga ku aadan faa'iidooyinka naasnuujinta ay u leedahay hooyada iyo dhalaankuba. haddaba wariyaha b b c da ee muqdisho maxamuud cabdicasiis ayaa arintaasi ka wareystay dr kayf xirsi khayre oo ah dhakhtarad ku takhasustay cudurada haweenka. waxaa waa in lagu dhiirigeliyo ama wacyigelin laga sameeyo in naasnuujinta ay wax fiican tahay ayna u wanaagsan tahay dhalaanka iyo hooyada ayna tahay isku xir aada u wanaagsan faa'iido badanna laga helo. marka in la weyneeyo naasnuujinta ayaa loo sameeyaa isbuucan loona asteeyey inuu noqdo isbuuca naasnuujinta ayadoo laga bixinayo wacyigelin dadka lagu dhiirigelinayo faa'iidooyinkana loo sheegayo. doctoresa faa'iidooyinka haddaan ka hadalno maxay tahay faa'iidooyinka uu leeyahay naasnuujinta haddii ay noqoto hooyada ama dhalaanka? faa'iidooyin badan ayuu leeyahay hooyada iyo dhalaanka labadaba. haddaan ku horumarno faa'iidooyin waxaa jira labadooda ka dhexeeya iyo faa'iido dhalaanka midna hooyada waayo. midda dhalaanka haddaan ku horumarno naasnuujinta waxaa loogu talagalay horta 2 sano la nuujiyo 6 bil ka mid ah 6 bil ugu horeyso waxaa la dhahaa exclusive breastfeeding oo ah in naaska kaliya la siiyo cunuga hadduu ku filan yahay. marmarka qaarkood waxaa dhacda hooyooyin qaarkood aysan ku filneen. waan ku dhiirigelinaa inay nafaqo qaataan laakiin hadduu ku filan yahay 6 bil ugu horeyso waxaa fiican hooyada inay naaska kaliya siiso dhalaanka. faa'iidooyinka uu leeyahay waxaa ka mid ah in dhalaanka uu ka hortago caabuqyada uu cunuga helaayo haddii difaac fiican u helaa haddii cudur ku dhaco ama wax ku dhaco uu u yasirnaanaya. waxaa ka mid ahoo kale inuu mararka qaarkood waxaa jiro cunuga naaska nuugo uu ka difaac fiican yahay cunuga kale. cudurada badankoodna wuu ka hortagaa naaska oo difaac u noqda hadduu soo mara xataa si sahlan ayuu u marayaa. haddaan fiirino dhinaca hooyada iyadana waxay ka heshaa markii naasnuujinta ay sameyso kansarada qaarkood sida kansarka naasaha iyo kansarka ugxaansidayaasha way ku yartahay hooyada naaska nuujiso riskigeedu aad uu ugu yaryahay. maxaa kaloo jiro in uu hormoon uu soo daayo markaa naaska nuujinayso hooyada hormoon la soo daayo waxaa jiro minka aruurinaya hooyada markaas ay dhasho minka ayaa u aruuro dhiigbaxa oo hooyada markay dhasho ku dhici lahaana wuu ka difaacaya. waxaa kaloo jiro in uu hooyada xiriirka hooyada iyo dhalaanka uu aad u fiican yahay markii naasnuujinta ay xiriir dhow ay yeeshaan uu cunuga bound uu ku noqdo ama uu ku dhowaado. waxaa kaloo jiro in dhalaanka uu maskaxdiisa aas u korto. cunuga naaska qaata 2 sano maskaxdiisa way ka fiican tahay ilmaha kale. waxaad sheegtay 6 bilood u horeysa in ay u fiican tahay cunuga in la siiyo naaska oo kaliya hadduu ku filan yahay. mararka qaar waxaan aragnaa in hooyooyinka qaar ayagoo cunuga naaska nuujinayo inay caano u soo gadaan gaar ahaan kuwa geesac oo kale in biyo la siiyo. bal arrintaas ka waran maxaa dhibaatoona cunuga uga imaan karta? walaahi mararka qaarkood ilmaha naaska kaligood la siiyo way ka difaac fiican yihiin. mararka qaarkood anaga waxaan fiirinaa cunuga inuu cayilo iyo waxaas ayaan ka fiirinaa laakiin cunuga asoo miisaankiisa normal ah ayuu difaac fiican haystaa markuu naaska nuujinayo. marka naaska la nuujinayo ilmaha haddii marka caano loogu daro mararka qaar waa kuu sheeg hooyooyin waxaa jiro dhahaan naaska ma nagu filno. caanaha qaarkood ayaan tayo badan lahayn. maxaa imaan kara marka cunuga wuu yaryahay biyaha si fiican ma loo kulleyn karo mararka qaarkood looma kulleeyo masaasadiya infection soo raaca wixii laakiin naaskan waa u dhadhaqeele xag allu wuxuu ka yahay si dhan wixiis u diyaarsan yahay isku dheeli tiran yahay hore lee laga siinaa. waxaa waaye waana ka raqiisan yahay waana ka nadaafad fiican yahay dhinac kasta. marka waxaan kula talinayaa hooyooyinka Soomaaliyeed in naaska la nuujiyo 2 sano ilaahay ugu talagalay cunugana faa'iido u yahay hooyadana faa'iido u tahay. waxaa jira dumar badan oo Soomaaliyeed oo hadda hooyooyin ah caruur haysto oo haddana shaqeeya ama ha u shaqeeyaan goobaha gaarka loo leeyahay ama goobaha guud. waxaana laga yaabaa gabadhii in ay saakaysa u soo baxdo ilaa galabta in aan fasax loo siinin ama aan loo ogolaan inay cunuga naaska nuujiso. marka maxaa looga baahan yahay goobaha loo shaqeynayo in hooyada naaska nuujinaysa u sameeyaan? waxaan si khaas ah ama aan ka codsan lahaa hay-adaha oo private-ka ah iyo kuwa dawliga ah in gabdhaha nuujinaya si khaas ah loola tacaamulo. waxaaba ugu muhiimsanaatay 6 bil ugu horeyso maxaa yeelay waxaan rabnaa inaan ku dhiirigelino inay 6 bilood naas nuujin sameeyaan. gabadhii marka hadday shaqo ku waxaysan tahay ama ku xoogaa ma saamaxayso marka waxaa
u fiican in fasax gooni ama si khaas ah oo ayada loola tacaamulo oo laga duwo dadka kale marka 6 bil ugu horeysa 6 bil ka bacdi waxa ilmihii cunta loo bilaaba caana la siina wax badan loo qabana marka 6 bil ugu horeysa laakiin hooyooyinku waxay u baahan yihiin si khaas ah in loola tacaamulo loona soo dhaweey si loogu dhiirigeliyo Dr. Kayf Xirsi Khayre oo ah dhakhtarad ku takhasustay cudurrada haweenka ayay taasi ahayd oo u waramaysay wariyaha BBC-da ee Muqdisho Maxamuud Cabdicasiis wali halkaad nagala socotaan waa BBC saacada Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 7 aroornimo iyo qadar 20 daqiiqo bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida sida ay u dhacayaan halka ay ka dhacayaan iyo saamaynta ay leeyihiin bbcsomali.com waxa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo waraysiyo warbixinno iyo macluumaad aqoon kororsi ah haddaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo bbcsomali.com mar kasta iyo meel kasta waa hagaag ciyaarihii ay inoo soo socda balse markan qowmiyadda wiigaha ee Shiinaha ayaa ku nolol la sheegay inay aad u adag tahay oo aadna loo ilaaliyo dhaqdhaqaaqooda iyadoo in ka badan 1 milyan oo ka mid ah qowmiyaddaasi lagu xareeyay xerooyin aad loo ilaaliyo baarayaal ka tirsan jaamacadda Sheffield ayaa sheegay in dowladda Shiinaha ay qowmiyadda Uyghurka ku nool dibadda ay ku cadaadinayso in ay u basaasaan kooxaha u ololeeya xuquuqda aadanaha faafahinta warkaas waxaa warbixintan ku eegaya Axmed Yuusuf Cadceed mudaharaad ayaa waxa uu ka hor dhacay bannaanka xafiiska arrimaha dibadda ee Ingiriiska laakiin dadkan astaantoodu ma aha mid si toos ah u muuqata kuwani waa dad ka soo jeeda qowmiyadda Uyghurka waxay rabaan in dawladda Ingiriisku ay ka hadasho xadgudubyada ka dhanka xuquuqda aadanaha ee Shiinuhu kula kacayo dadkooda laakiin qof ayaa la soo diray wuxuuna soo dhaxgalay dadkan isagoo la soo saftay ruuxani wuxuu ururinayaa si qarsoodi ahana uu dadka uga qaadayaa haybtooda iyo waxa ay ku kacayaan si uu iyadoo faahfaahsan ugu gudbiyo maamulka Shiinaha qofka nala hadlayaa waxaan magac ahaan ugu yeeraynaa caalim iyadoo aanu qarinayno muuqaalkiisa si aan loo aqoonsan ruuxa dhabta ah ee uu yahay caalim waa ruux qaxootiga oo ku nool dalka Ingiriiska caalim ayaa la siiyay fursad aan la helin inta badan oo ah muuqaal isaga iyo hooyadiis lagu wada hadalsiinayo oo uu iska soo horjeediyay waxaan u tagnay qoyskaaga saaxiibkii ayaa xogtooda soo ururiyay haddii aad rabto inaad arato iyaga waxaan ku qaban qaabin karnaa xiriir toos ah oo muuqaal ah askarigii ayaa isku xiray isagoo haysta 2 telefoon oo gacanta ah haye ayaa uu isticmaalay telefoon aan kula xiriiro hooyaday kadibna telefoon kale ayuu igala soo xiriiray taasoo ii saamaxday inaan hooyaday ku arko shaashadiisa markii aan arkay hooyaday waxaan xajin kari waayay dareenkayga 6 ilaa 7 sano ayaan laga joogaa tani markii igu dambeysay ee aan arko tani waxay ahayd waqti aad u naxdin badan oo wadnahayga gelgishay laakiin waxaa jirtay inuu wax weyn iga doonayay sarkaalka ka socda ciidanka dawladda Shiinaha waxaan maqalnay in dhaqdhaqaaqayaasha Uyghurka ay qorsheynayaan inay kulmaan bish soo socota waxaan rabnaa inaad ka qayb gasho kulankaasi oo aad ogaato ra'yiga iyo waxyaabaha lagu tashanayo gaar ahaan madaxda waan ognahay cidda ay yihiin reerkaygii bay qafaasheen iyagoo dhibkani soo mariyay ayay haddana inkastoo laga yaabo inaan muuqaalka guud aan u ekahay qof niyadda u degan tahay haddana se waan dhibanahay warbixin la daabacay sanadkan ayaa sheegaysa in 60% dadka Uyghur ee ku nool dalka Ingiriiska loo gudbiyay codsi kan la mida si ay ula socodsiiyaan dawladda dhaqdhaqaaqa dadka kale ee isku qoomiyadda yihiin ama ay joojiyaan inay ka hadlaan waxa ka socda gobolka Xinjiang tani waxay ku saabsan tahay habka ay dawladda Shiinaha u dhibaatayso oo ay ugu hanjabto dadka Uyghurka ah ee dibadda ku nool oo ay isku daydo inay xakamayso howlmaalmeedkooda inta badan waxay la kulmaan hanjabaad iyo cagajuglayn kaga timaada booliska iyo saraakiisha dawladda Shiinaha laakiin dhammaantood waxaa soo wajahda xaalad ah in la kala qaybiyo xubnaha qoyska dadka ka soo jeeda Uyghur ee ku nool meel ka baxsan dalka Shiinaha ayaa waxay yihiin kuwo kaalin weyn ku leh iyo dunida inteeda kale waxayna u hadli karaan kuwa weli ku sugan gudaha gobolka Xinjiang iyagoo u sheegaya adduunka xeryaha dadkooda lagu qabiray
halkaasoo qaramada midoobay ay sheegtay in ka badan 1 milyan oo qof inay ku xiran yihiin dhowrkii sano ee lasoo dhaafay. caalim wuxuu diiday inuu la shaqeeyo saraakiishii ciidanka dowladda Shiinaha ee la soo xiriirtay. waxaana ogaanay in inta badan codsiyada ay soo jeediyaan booliska Shiinaha inay diidaan xubnaha ka tirsan bulshada Uyghur ee qurbaha joogta. oo mahadsan yahay Axmed Yuusuf Cadceed oo inala socodsiinayay warbixintaasi la xiriirta qowmiyadda Uyghur ee Shiinaha ku nool iyo qaabka ay u nool yihiin. markan see dhegeystayaal waxaanu eegaynaa wararkii ugu dambeeyey ee cayaaraha, gaar ahaan waxaan eegi doonaa wararkii suuqa kala iibsiga, halka uu marayo koobka adduunka ee haweenka iyo qodobo kale. waxaan ku bilaabaynaa stuudiyaha dabcan waxaa ila fadhiya Cabdiraxmaan Cali Dhimbiil. Cabdiraxmaan oo wararka suuqa markaan eegno, Chelsea ayaa waxaa laleeyahay waxay ogolaatay heshiis ay kula soo wareegayso golhayaha Brighton Robert Sanchez. bal taan oga waran adoo ku horeynaya. kowsaraha heshiiskaas xalay buu soo baxay xilli dambe in kooxda Chelsea iyo ciyaaryahanka Robert Sanchez ay heshiis gaadheen. waxaan ognahay Chelsea inuu ka tegay goolhayaheedii hore ee Mendy oo aaday Al Ahly iyo dhanka Sacuudiga, isla marhaantan ay raadinayso goolhayo cusub oo la tartama goolhayaheeda hadda ee Keba. marka ciyaaryahankaas ayay ku soo gadatay 25 milyan. Sanchez wuxuu ciyaari jiray kooxda Brighton Albion, waa 25 jir. booskiisa kooxdaas wuxuu lumiyey xilli ciyaareedkii hore qaybtii dambe markii John Steele uu noqday goolhayaha koowaad ee kooxdaas Kowsare. markaan kasoo tagno Robert Sanchez iyo Chelsea, isla Chelsea waxay doondoonaysay ciyaaryahanka Brighton ee Moses Caicedo. heshiiskaas halkuu marayaa Cabdiraxmaan? heshiiskaas ilaa hadda wuxuu ku jiraa heshiisyada ugu carqalada badan ee iminka suuqa ciyaaraha xilligan laga arko. wuxuu soo bilaabmay tan iyo furitaankii markii uu furmay suuqa ciyaaruhu, haddana ilaa hadda wax natiija lagama gaadhin. Chelsea weli waxay ku adkaysanaysaa in ciyaaryahankaas ay kooxdaas ka gadan doonto. tiriba dhowr jeer ayay u dirtay heshiisyo iyo doonis ay ku doonayso ciyaaryahankaas, laakiin intaaba kooxda Brighton way soo diidaysay, iyadoo qiimaha Chelsea ay ku doonayso ku eedeynaysay inuu qiimahaasi ka yaryahay qiimihii ciyaaryahankaasi uu u qalmay. warar ay Sky Sports waxay sheegayaan in Brighton ay ciyaaryahankan ku qiimeynayso 100 milyan keliyana uu kooxda kaga tegi karo haddii ay Chelsea diyaar la tahay inay keento 100 milyan ee kooxdaasi doonayso inay ciyaaryahankaas ka bixiso Kowsare. Cabdiraxmaan, markaan kasoo tagno Robert Sanchez iyo Chelsea iyo sidoo kale Moses Caicedo, maxaa kaloo ugu mudan wararka suuqa kala iibsiga ciyaartooyda la xiriira? waxaa ugu mudan in ciyaaryahanka Harry Maguire ay kooxaha raadinaya ugu horeeyaan Everton iyo Tottenham, inkastoo ciyaaryahanku ku adkaysanayo sii joogitaankiisa kooxda Manchester United uu rabo inuu booskiisa u dagaalamo. kooxaha Chelsea Manchester City waxay isha ku hayaan ciyaaryahanka Crystal Palace uga dheela garabka Mikel Olise. kooxda Paris Saint-Germain waxay soo gabagabaysay heshiiska Gonzalo Ramos. sidoo kalena kooxda Man City-na waxaa laga yaabaa inay maanta ku dhawaaqdo heshiiska ay la gaadhay ciyaaryahanka Gvardiol oo ay ku soo gadatay lacag aad u sarreysa 90 milyan. Manchester United waxaa la sheegayaa inay si gaara ula socoto ciyaaryahanka dhexda uga ciyaara kooxda Bayern Munich ee lagu magacaabo Goretzka, kaas oo la rumaysan yahay inaan ku jirin qorshaha Tuchel xilli ciyaareedkan Kowsare. waa tahay markaan kasoo tagno wararkaas la xiriira suuqa, Cabdiraxmaan, waxaa meel xiise ah maraya koobka haweenka ee adduunka. Morocco waxaa lagu soo waramayaa in ay haweenka kasoo jeeda ama u ciyaara ay taariikh ka sameeyeen koobka adduunka. bal taana nooga waran. Kowsare, waa sida aad sheegtay, Morocco waxaan xasuusanaa in ciyaartooyda raggu koobkii adduunka ragga ee qadar ka dhacay wacdara ka dhigeen ay noqdeen xulkii ugu horeeyay Afrikaan ah ee gaadha afardhamaadka. haddana xulkooda dumarku waxaad moodaa in wacdarihii mid ku dhow uu ka wado koobka dumarka adduunka oo haatan socda. waxay noqonayaan xulalka farakutiriska Afrikaanka ee gaadhay wareegga 16. Morocco dabaaldeg baa lagaga jira iyagoo mar kale ku faraxsan doorka Afrikaanka ku matalayaan fagarayaasha caalamiga. waa tahay Cabdiraxmaan Cali Dhimbiil oo mahadsan yahay inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha. barnaamijkii oo Axmed Badar soo saaray anigoo ah Kawthar Maxamed Cabdullaahi inala socodsiinayay. waa naga intaa nabaday.